hay-adda WHO ee qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca caafimaadka adduunka ayaa maanta kaalmo caafimaad oo loogu talagalay in lagu daaweeyo dadka shuban biyoodku soo ritay waxay ku wareejisay wasaaradda caafimaadka ee Somaliland. Wakiilka WHO ee Soomaaliya Gulaan Babaal oo munaasabada ugu horeyn ka hadlay ayaa faahfaahiyay daawooyinkan iyo meelaha loogu talagalay waxaana uu sheegay in aanay tani noqonaynin daawadii ugu dambeysay ay ku caawiyaan shacabka Somaliland. Today is one example of WHO support to the ministry. As we see, we are handing over to the Ministry of Health a package of medicine, medical supplies, in order for the ministry to be able to address the challenges of the drought, the health consequences. And today's wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka Somaliland Maxamuud Jaamac Galaal oo gudoomiyay daawooyinkan ayaa u mahad celiyay hay'adda WHO ee caafimaadka adduunka qaramada midoobay u qaabilsan u galo hawsha lagaga hortago tabaalada abaaraha dawadaas oo ilaa 5,000 oo tan ah iyay maanta keeneen ilaa alaanka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa WHO ilaa waqtigan xaadirka ah intay aafada abaaruhu ay socdeen waxayna guddoonsiiyeen 12,000 oo hore oo tan barina diyaarad kala imanaysa diyaaradaasina waxay kaloo sidaa 4,000 oo tan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin sidaad ula socotaan waxaynu ku jiraa xilli adag inkastay roobabkii da'een Soomaalidu waxay tiraahdaa ayax tag eelse ka tag waxa weeyaan roobkii Ilaahay wuu inoo shubay laakiin iminka iyo halis kale bilaabantay wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Somaliland waxay samaysay qorshe ballaaran oo ay iminkana ku jirtaa meesha iminka ugu daran waqtigan xaadirka ah waa gobolka Togdheer bay arrintu aad ugu culus tahay iyo Sool waxaanu wadnaa hawlo aad u ballaaran si aanu u xakamayno xanuunada siiba shuban biyoodka hawlahaas waxa ka mid ah in aanu aasaasno goobo cusub oo lagu xakameeyo xanuunka goobahaasoo aanu 10 meelood oo Togdheer iyo Soola iminka geynayno awala ay goobo hore jireen hawshaasna iminkaanu ku jiraa dadka shicibka reer Somaliland aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay sida aad hawsha u gasheen halka ka wada annaguna waanu ku jiraa hadaan wasaaradda caafimaadka nahay Xasan Galeedon Cable TV Hargeysa.